afaraad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, sheekadii darteed uu wiilwaal Tibiro ku guursaday waataan toddobaadkii hore idiin mariyey. intuu awrka qalay waatuu raggii ku xujeeyey in mid waliba u keeno cadka ragga israaciya. odayadii degmada midkood intuu xujadii gartay waatuu u keenay hungurigii ratiga. kolkaasna inta dareen cusubi ku soo kordhay waatuu wiilwaal odaygii ku yidhi, war adigu xujadayda nin furi kale uma ekide, yaa kuu sheegay? odaygiina inta ka baqay garashadiisu inay galaafato waa kii ugu jawaabay, waa runtaa garaad, oo anigu nin wax garan kara ma ihie, waxaan ka soo guuriyey inan aan dhalay oo cadkaan oo aad u dan lahayd ii sheegtay. waatuu wiilwaalna intuu gabadhii u bogay markiiba guddoomiyey inay isaga afadiisa noqoto. waa kii sidaasna Timiro ku guursaday. kadib ninkii ay u doonanayd markuu ku aamusiiyey 10 sac oo dhaawacii xilaka qaadka maraha uu kaga dhayaayey. maalin kale isaga oo awr ka baxsatay baadigoobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu leeyahay ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badanoo dhowaan ruuman uu toddoba helay ku kala baahay. wuxuu abbaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan geedina samaysanaysa. faraskii uu ku joogay intuu soo ag joojiyey ayuu nabdaadiyey, dabadeedna ku yidhi, gabarey, waxba awr baadi ah ma aragtay? waxay tidhi, indha kama qaadin, ha yeeshee balaan maleeye awrta mid dabali imu ku jiray. wuxuu yidhi, haa. markaas bay tidhi, mid illi isna ma ku jiray? wuxuu ku jawaabay, haa. markaas bay ku tidhi, haddaba raadkoodii uun baan arkay ee ruuxoodii ma arage, dhinacaas iyo qorraxa dhaca bal ka baadi goob. sidii ay kula talisay ayuu yeelay. galabgaabkiina halkii ay farta ugu fiiqday ayuu ugu tegey, iyaga oo si wacan geedaha luqmaha ugula jira, hareerigii toomahana ka hamuun beelay. karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa wiilwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay. habeenkii meel uu ku baryeyba barqadii uu la kulmay teedihan ayuu isla meeshii ugu yimid, iyada oo aad moodo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin. markii la isnibdaadiyey kadib ayuu weydiiyey, gabarey, awrka dabadana sideebaad ku garatay? markaas bay tidhi, awrtu kolka ay saaroonayso saynta ayay saarada ku kala firdhisaa, kaaguse meel keliya ayuu tuuminayey, oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa. wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey, waa tahaye midka isharacna sideebaad ku garatay? waxay tidhi, geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac keliya ayuu ka daaqaayey, ee sida awrta kale dhinaca kale uma gudbayn. sidaas baana ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay. subaxdaas buu wiilwaal inantaana u qira inay tahay qof qorshe iyo quruud leh. isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey carruurtiisa mooyee inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin. sidaas ayuu ku guursaday dahabaduula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd. si kastaba ha ahaatee, haddii aynu doono inaan ogaano jawaabaha dadka siduu wiilwaal garashadooda ugu dhudhumin jiray, ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa. waxaa la yidhi, inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu hana qaaday reer aabbihii u wareegay. beri dambe ayaa wiilwaal waxaa loo soo tabiyey dadka uu u taliya qaarkood inay inankii xanteen, kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin, isagana aan ku bannaanayn. hadalkii ayuu liqi kari waayey. waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeen sida uu dhaliilba u yeelan karo. dabadeedna inankii ayuu fariin u diray, isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin hebla geedka shirka inay ku soo beegaan. wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo.
isaga oo aad moodo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu wiilwaal inankii kula booday oo 3 su'aalood mar qura isu daba dhigay wuxuu ku yiri maandhow xoola maxaad ka timi maandhow xaraga maxaad ka timi maandhow xaasna maxaad ka timi inankiina isaga oo aan keelkeelin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay abti xoola waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna xaragana waxaan ka imid geenyadii xamara ahayd xaasna xayn ari ah ayaan ka imid waxay noqotay gargayrtii goobta fadhiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen si gaar ahna garaadkii u farax gelisay kolka maxan dambaa jirta wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiday soo wax yaqaan inuu yahay looma wada qarin soo isla goobtiina kama cadaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayo dhab ahaanna ay walaashii dhashay